waa tahay nabadda wadaan meel kastoo aad joogtaan ba ku soo dhawaada barnaamijka horumarinta dhalinyarada oo toddobaadkan idinkaga imaanaya ismaamulka magaalada Diradhabe. Toddobaadkan barnaamijka waxa inagala qayb qaadanaya Cabdiraxmaan Rooble oo kamida dhalinyarta ama aqoon-yahanka ku nool magaalada Diradhabe. Ugu horreyntii Cabdiraxmaan ku soo dhawaad telefishinka Nabad TV iyo barnaamijka horumarinta dhalinyarada. Waayaan ku soo dhawahay. Barasho wanaagsan Cabdiraxmaan Rooble la yiraahdaa gaar ahaan xafid ciisan deg. Cabdiraxmaanow waxaad warbixin naga siisaa dhalinyarada ismaamulka magaalada Diradhabe ku nool warbixin naga sii dhalinyarada ismaamulka magaalada Diradhabe ku nool waa dhalinyaro wallahi hadda sidii hore dhaanta oo furfurcoon shaqo abuurkana ka qayb gasha waxyaalo badan ay kaga qayb galeen ayaa jira sida iskaashatooyinka oo kale waxay iskaashatooyin ku sameeyaan qaybtan la yiraahdo jimlaanigda ka faafay af Soomaali ahaana waxa lagu yiraahdaa sida bakhaarada oo kale alaabta iyaga oo ku iibinay tafaariiq iyo jilmadba shaqooyin badan oo noocaas ay kaga qayb galeen ayaa jirta waa taas gaar ahaan dhanka sportigana hadda way fiican yihiin oo kubadda aad bay u ciyaaraan sidii hore maaha oo balwadihii ay lahaayeen generationadii hore generationkan hadda kacay male waxbarashadana way ku fiican yihiin dhalinyarada maanta wad mahadsantahay balanaga wali ku dhex jirna dhalinyartii iyo horumarkooda dhanka iskaashatooyinka ka dhawaajisay iskaashatooyinku ma mid ay dawladdu ay abaabushaa mise waa mid iyagu is abaabulaan oo si khaas ah isku abaabulaan okay boqolkiiba 80 dawladda ayaa abaabusha oo ku baraarujisa inay shaqeystaan si ay uga maarmaan waxa shaqalida si ay uga maarmaan awgeed dawladda ayaa ku baraarujisa 20%na iyaga ayaa dhexdooda dawladdu intii ay dhistay markii ay arkaan inta kalena iyaga ayaa dhexdooda is urursada oo si ay iyagna u sameystaan iskaashatooyin ay uga maarmaan shaqalida badalka dhanka dawladda magaalada Diradhabe san wadogsonahay waa ismaamul صح marka laga yimaado xaafadaro kooban oo kamida deegaanka Soomaalida صح inta badan magaalada waa ismaamul weeyaan oo heer federaal weeyaan صح dhanka dawladda dhalinyarada Soomaaliyeed ma ka heshaa saamigii hadii tahay shaqo hadii tahay waxbarasho iyo hadii dhan kastaba saamigii ku lahaayeen xaq u lahaayeen ma ka helaan hadda way ka helaan oo waxa jirta imaka waxaan la dawaan galiyahay wixii dhalinyar magaalada jirtay ee shaqali ah intii soo qalin jabisay jaamacado intii iskoolada aan sideedaad ku daysay iyo intii kale ee hore wax soo baratay iyo intaan wax soo baranba list ayaa la sameeyay hadda fursad shaqo oo soo socota ayaa rajaynaynaa inay ka qayb gali doonaan laakiinse dawladdu badanka waxay sameeysaa way isku xidhaa oo 5 qof 7 qof 10 qof hadba sidii ay u shaqeysan karaan ayay isku xidhaa si ay uga faa'iideystaan khayraadka dalka ama la si uga faa'iideystaan shaqo abuurkan imika soo biiray ee siraadil fataraaga la yiraahdo markaas way ka qayb galaan oo samigii ay ku lahaayeen dawladda way ka helaan marka kan imaano dhanka ismaamulka magaalada maadaama ismaamul ay tahay صح aanu gudubno dhanka deegaanka Soomaalida صح iyadoo wali ma ismaamul jirno hadana de khasab dhalinyaro deegaanka Soomaalida ka soo wada jeeda weeyaan صح deegaanka Soomaalidu dhalinyarta ku nool magaalada Diradhabe صح sidee buu la macaamulaa hadii tahay xagga dhiirigelin hadii tahay xagga fursado uga faa'iideeyo hadii tahay xagga baraarujin sidee buu la macaamilaa xiriir wanaagsan u wada leeyihiin deegaanka iyo dhalinyarta Diradhabe halkan ismaamulka waxa lagu maamulaa taamaraha wax la yiraahdo oo labadii xisbiga iyo hadigta iyo Sodepa ayaa wada maamusha si taamara ahaana markaas waxa jira laanta xisbigu waa laan kamida Sodepaagi deegaanka iyo laan kamida oo Diradhabe ka howlgasha ayuu yahay markaas dhalinyaradan deegaanku fursado badan ayuu deegaanku siiyaa sidii Somali microfinance oo kale ayaa jira halkan xarun ku leh si fursad loo siiyo dhalinyarta Soomaalida ee shaqo abuurka loo sameeyo oo kale markaas uu la maamula ama uu la macmiila una soo dhaweeyaa dhanka isdhexgalka waxaan la noolnahay inta soo qoomiyadood ayaa magaalada inagu nool صح dhanka isdhexgalka talow sabab ku tahay dhalinyarta reer Diradhabe Soomaaliya wallahi way fiican yihiin oo qoomiyado badan iyo Diradhabe ismaamul ahaan ku nool qoomiyadahaas way la jaan qaadaan dad isku taaga maaha oo way la socdaan oo waa dad waxaan oran karaa la jaan qaadi kara meel walba ay tagaan dhalinyaradan Diradhabe ee Soomaalidu waa dad meel walba ay tagaan la jaan qaadi karo maadaama ay dad ay nooc ay la nool yihiin
Ethiopiankii kale Soomaalidii Oromadii Xamashidii Tigreegii ay nuuciya ku nool ismaamulka Darrabe dadkaas maadaama ay la macaamilaan meel walba ay tagaan way la jaan qaadi karaan ayaan isleeyahay kulli qof kasto umad kala gedsan la dhaqma ama de ku dhex jira sax fursado badan buu ka helaayo dhanka waayaaragnimo iyo waxyaalo fara badan kulli iyaguna waayaarag badan way ka faa'iideen maadaama ay intaas soo qoomiyad ay kulli nool yihiin sax bal maxaad isleedahay dhalinyarta Soomaaliyeed meelaha gaabka ugu badan kulli gaab badan baa jira oo wada qirsan yahay maxaa sabab aan sidii karnaa sidoo kale maxaan ku hortay karnaa haday tahay aqoon-yahan ahaan haday tahay dawlad haday tahay ururo kale siyaabo lagu hortay karayaa gaabkan badan ee dhalinyarta Soomaaliyeed haysta meel kasta ay joogaan dhibaatada blogii marka aan ka hadlo dhalinyaradan Darrabe generationkii ka horeeyay dariiq umuuna jeexin ay maraan generationkan dambe taas ayaa sabab u keentay in uu gaab imido dhexdoodii hadda ahaan laakiin wallahi waxaan jeclahay in sidii hore ay ka baraarugeen ay wax isbedel ay keeneen xaaladii soo martay awgeed imaka waxaan jeclahay meel walba ay tagaan in la jaan qaadi karaan taasna waxa aan kaga badbaadi karnaa ama leesende gaabkan lagaga bahalkii noqon karaa lagaga maarmi karaa haddii isku xidhka Soomaalida deegaanka iyo Soomaalidan Darrabe degan isku xidhkooga haddii la kubciyo ama la balaadhiyo oo la sii adkeeyo waxa gaabkan u dhaxeeya inuu yaraado ayaa dhici kara talo isku xidhka hadaan ku noqono dhalinyarta reer Darrabe ee Soomaaliyeed sibay isku xidhan yihiin isku xidhkooda maxaa ku tilmaami karnaa dhalinyarta Darrabe ururo ayaa jira nimanka tusaale ahaan eber 9 oo kale ururo ayaa ka jira eber 7 ururo ayaa ka jira qabal ahaan xilligan ka hadlo eber 1 ururo ayaa ka jira ururadaas ayaa mararka qaarkood sida markay ku bada ay jiraan markay ay wax ay jiraan way isku yimidaan halkaas ay badankooda ku kulmaan iyaga oo ururo dawladdu iskaashatooyinka ay dhistay ka madax bannaan sidii ururadii heelada loo oranayay Hilaa Cunkad ururo noocaas ay sameystaan ay ku kulmaan badankooda marka waxaan dhigi karnaa dhanka xiriirka iyo iska warhaynta reer Darrabe dhalinyartu aad ugu wanaagsan ma sha Allah ugu dambeystii maxaa dhalinyartu ugu baaqaysaa dawladda laftirkeeda ismaamulka magaalada Darrabe maxaa iyaga laftirkooda aad ugu baaqaysaa deegaan ahaan iyaga laftirkooda maxaad helaan waxa weeye aniga haddahan waxaan ugu baaqayaa dhalinyarta Darrabe in ay shaqo abuurkan ballaaran ay ka faa'iideystaan si ay generationka dambe dariiq ay ugu jeexaan ayna u noqdaan dad isku xidhan oo isku kalsoon ismaqlaya deegaankan waxaan ugu baaqayaa in uu dhalinyarta Darrabe ka warhayo wixii disamigooga xaqooga ahaana si uu u siin lahaa ama leeseen ugu sababi lahaa dariiq ay wax ku heli lahaayeen inuu isagna u jeexo waayo xagga ismaamulka Darrabe waxaan ugu baaqayaa in ay ka warhayaan dhalinyarada Darrabe way fursadaha ay uga faa'iideeyaan fursadahan chansigan Siraadil Fataraaga shaqo abuurkan si ay uga faa'iidaan sidoo kale chansin loo raadiyo soo ma qurux badnaa cusub oo maadaama chansida hore aan ognahay alxamdulillah dhalinyarta ugu mahadcelinaysa laakiin chansi kale cusub soo ma qurux badnaa way jiraan chansi kale cusub oo hadda la soo wado kullay way ka qayb gali doonaan maadaama ay degan yihiin Darrabe way ka qayb gali doonaan waxaan oran lahaa in fursadihii sportiga looga qayb galay si uu dadkan balwadaha leh uga yaraado inay fursadaha ay badiso ismaamulka Darrabe waa tahay daawadayaal inta waxa inagu dhan barnaamijkeennii horumarinta dhalinyarada oo toddobaadkan idinkaga yimaanayay ismaamulka magaalada Darrabe toddobaadkan barnaamijka waxa inagala qayb qaatay Cabdiraxmaan Rooble oo kamid ah aqoon-yahanka dhalinyarada ku nool magaalada Darrabe runtii si wanaagsan baan kaaga mahadcelinayaa sida fiican ee aad barnaamijka nagala qayb qaadatay Cabdiraxmaan aad iyo aad baad mahadsan tahay inta waxa inagu dhan barnaamijkeennii horumarinta dhalinyarada oo idin la socodsiinay anigoo Cabdixakiin Xasan Mataan tan iyo kulanti dambe sidaas iyo amaana Allah